subax wanaagsan, jimco wanaagsan, saaxiibayaal sidaa u dhantiin ee meel kastoo dunida ka joogtaan. Fadlan haday tahay daawashada kugu horeysa maanta channelka soo booqato subscribe saaro si aad ula socoto shaxaha maalinlaha aan maalin kasta soo gelino. Intaa kadib waxaan rabaa barnaamijkan ama warbixintan kooban inaan kula wadaago shaxdii xalay iyo siday u guuleysatay. Shaxdayna xalay oo soo dhigay maqribti wixii ka dambeeyay kuna soo qoro shax degdeg ah taasoo aan u arkayay shaxdaani inaan idin la wadaago. Waxa ugu horeysay Arsenal iyo PSV Eindhoven oo ka wada ciyaarayay UEFA Europa League. Sidaan ku sheegay Arsenal caawa inay badinayso balse aanan dhahayn way badinaysaa oo aan dhahayo Arsenal Rage ama badis. Sidaa u jeedaan Arsenal hal gool ayay ku badisay qura sidaas ayaan weyn ku soo baxday. Waxa kale ku soo xigay Leicester City iyo Leeds United oo ogtihiin Leicester City iyo Leeds waa koox dhib badan. Kooxda Leicester City waa kooxda horyaalka Premier League kala sareynta dhibcaha kooxda ugu hooseysa ama kaalinta ugu hooseysa ku jirta. Marka Leeds asxaabta qaar waxay dhihi lahaayeen Leeds badanaysa ama double chance maadaama Leeds ay dhalinyaro aad u firfircoon ay u ciyaaraan, balse inta maanan dhihin Leicester City iyo Leeds waxaan dhahay 2 gool oo kaliya ayaa ka imaanay. Sida u jeeda labada gool aan ku saadaalinay ayaana ka timid Fulham iyo Aston Villa sidoo kale oo ay Premier League qayb ka ahaa. Fulham iyo Aston Villa sida u jeedaan ayadana waxaan dhahnay 2 gool ayaa kaliya ayaa ka imaanayso. sidaas waxaa u jeedaan 3 gool inay ka timid. waxa kale oo ku soo xiga horyaalka Belgium ee qaybtiisa Serie B oo ka wada ciyaarayay Royal Antwerp kooxdan furan tahay iyo kooxdan kaleeto oo aan dhahay Royal ayaa badinayso guud ahaan ciyaarta aan wax shaki aan gelinayn ayaan markaan shaxda soo dhigay oo idin dhahay. sida u jeedaan toos way badisay oo waa ku kalsooni qaba 100%. waxa kale oo ku soo xigay Solti iyo kooxda ka Anderlecht qoran tahay oo aan kugu sheegay markaa shaxda soo dhigay YouTube ka daawo kartaa kula 2 gool kaliya ayaa dhahayna laakiin 2 gool iyo ka badan ayaa ka imaanay. sida u jeedaan 5 gool ayaa ka timid. waxa kale ku sii xigay Barcelona iyo Villarreal. asxaabta qaar markaas shaxdan dhigatay waxay ka walwalayeen Barcelona oo qaybta horeeto ama half cambiyo horeeto lahayd 3 gool 40 daqiiqo wax ka yar ama 42 daqiiqo miya wax soo kale 3 gool ay Barcelona. laakiin aniga oo aan ku saadaaliyay total under 5 gool laga yaabo xalay asxaab badan oo ama asxaabta badan ee caalamka ku nool ay ku qasaareen Barcelona sababta uu qasaareen ay tahay maadaama koox weyn markay 3 gool la timaado half cambiyo horeeto waxa laga yaabaa 1 gool ayaa markaas soo kaleeto ay dhahan 1 gool ka imaanayso oo saar lacag kaleeto laga yaabo marka asxaab qaar 5,000 6,000 inay saartaan hal mar ayagoo dhahay 1 gool kaliya ayaa ka imaanayso markaasna one speed saaraan 14 sent ama 15 sent ama 16 sent wax soo kaleeto. laakiin balse anaga waxaan ku saadaalino kaliya inaan 5 gool ka imaan karin. marka midda xoogaa laga cabsanayo tan ay ahayd maadaama half cambiyo horeba 3 gool ay kooxdan Barcelona koox weyn ay tahay ciyaaryahanno fiican sanadkan u ciyaaraan balse 5 gool aan ku saadaalinay half cambiyo dambe wax gool maba ka imaaninba sidaas ayaan 3 eber ay ku dhamaatay. marka guud ahaan shaxdii xalay sidaan ayay ku soo ilaatay. fadlan markii shaxda la soo dhigo daawo inaad daawato wixii ka saacidaysaa inaad la qabsato qaababka aan ku saadaalino sidoo kale casharo ku saabsan qaababka kala duwan ee 1xbet loo saadaaliyo ayaan soo dhignaa ayadan la soco. aad baad u mahadsantahay saaxiibayaal.